asalaamu calaykum dhammaantiin kusoo dhowaada janalka doctor ajin maanta waxaynu ka hadli doonnaa waxa afka qalaad lagu yidhaahdo insomnia ama loo yaqaan hurdo la'aanta. Si aad u ogaato waxa uu yahay insomnia, waxa keena, waxa lagu daweeyo iyo ugu dambeyn cawaaqibta ka dhalata haddii la daweyn waayo, fadlan dhammayso muuqaalka. Haddaba waa maxay insomnia? Insomnia waa mid ka mid ah xanuunada ku dhaca hurdada ee loo yaqaano sleep disorders, taas oo ku kalifta qofka inuu seexan waayo ama hurdo ku filanba uu heli waayo. Waxaa loo kala qaybiyaa 6 nooc oo kala duwan. Kow, transient insomnia waa nooca koowaad, taas oo badanka qofka haysa wax ka yar 1 isbuuc. Inta badanna waxaa keena xanuuno kale. Sidoo kale, qofka oo meeshii uu seexan jiray ama xilligii uu seexan jiray bedela. Sidoo kale, qofka oo uu warwarka iyo quustu ay ku badan yihiin. 2, acute insomnia. Noocan iyana waxa ay qofka haysaa muddo ka yar 1 bil, waxaana badanka keena walwalka oo qofka ku bata. Sidoo kale, waxaynu dhihi karnaa haddii transient insomnia qofka laga daweyn waayo, waxay isku beddeshaa nooca loo yaqaano acute insomnia. 3, chronic insomnia. Noocan waa nooc muddo dheer qofka haysa, laguna qiyaaso muddadaas ilaa iyo 3 bilood. Sidoo kale, waxaa qofka u raaca noocan khayraad. 4, comorbid insomnia. Noocan badanka waxa ay la socotaa xanuuno kale sida lafo garaac iyo dhabar xanuun. Waxaa intaas u dheer oo la socda baqasho iyo quus badan. 5, onset insomnia. Noocan qofku 2 indhood oo uu leeyahay iskumaba keeni karo, hurdona haba sheegin. 6, maintenance insomnia. Noocan qofku waa uu seexan karaa, balse waxaa ku adag inuu hurdada ka bogto, oo kolba markuu in yar seexdo uu soo baraarugayaa. Haddaba maxaa keena insomniyada ama hurdo la'aanta? Hurdo la'aanta waxaa keeni kara waxyaabo aad u fara badan. Haddiise aynu soo ururino kuna soo koobno qodobo aad u kooban, waxaa keeni kara 1, xanuunada sida xiiqda, xanuunada neefqabatinka, wadna xanuunka, xanuunada dhimirka, xanuunada dhabar xanuunka, laabdilaaca iyo gaaska, iyo sidoo kale dhiig la'aanta. Sidoo kale, waxaa keeni kara hurdo la'aanta walwalka ama stresska, baqashada iyo naxdinta badan. Sidoo kale, waxaa keeni kara da'da qofka oo korodha. Ugu dambeyn, waxaa keeni kara cunista iyo cabista maandooriyeyaasha sida khaadka, kafeega, shaaha, kokayiinta, amfitamiinka iyo wixii la halmaalaa. Haddaba waa maxay calaamadaha hurdo la'aantu? 1, qofka oo hurdadu ku adkaato, xitaa waaya qaab ama si uu u seexdo. 2, qofka oo kolba hurdada ka soo booda kuna adkaato in uu dib ugu laabto. 3, diiqad iyo cadho badan. 4, deganaanshiyo la'aan. 5, qofka oo fahamku ku yaraado. 6, qofka oo daal iyo hurdo badan dareema maalintii. 7, qofka oo walwalku ku bato. Haddaba maxaa lagu daweyn karaa insomnia ama hurdo la'aan? Waxaynu u kala qaadi doonnaa medically iyo non-medically. Haddii aynu ku horeyno non-medically, 1, waa in qofku iska ilaaliyo waxyaabaha maandooriyeyaasha ah ee kor aynu ku soo xusnay. 2, waa in qofku ugu yaraan 3 saacadood ka hor marka uu seexanayo uu cuntada cuno. 3, waa in qofku haddii uu xanuun hayo uu qaato xanuun baabiye inta aanu gogasha tegin, iskuna dayin inuu seexdo. 4, waa in qofku waxoogaa yara jimicsado saacada ka hor hurdada. 5, waa in qofku iska dhaafo isticmaalka dhammaan waxyaabaha electronicska ah
ugu yaraan nus saac ka hor hurdada, sida taleefannada, kombiyuutarka, iyo inuu iska damiyo nalalka ama leydharka. Waa in qofku meesha uu seexanayo nadaafadeeda saxo. 8. Waa in qofku aanu gogosha tegin isagoo hurdo hayso mooyaane. 9. Waa in qofku akhristo ducooyinka iyo adkaarta hurdada inta aanu seexanin habeenkii. Medically waxa lagu daweyn karaa qofka 1 inuu qofku qaato ama la siiyo melatonin oo ah hormoonka hurdada oo qofka dibadda ka qaato. Sidoo kale waxa uu qofka qaadan karaa oo la siin karaa benzodiazepines. Sidoo kale waxa uu qofku qaadan karaa antihistamines. Sidoo kale waxa uu qofku qaadan karaa antidepressants. Ugu dambeyn waxa qofka la siin karaa antipsychotics haddii looga shakiyo inuu qofkaasi qabo xanuunada dhimirka. Ugu dambeyn, waa maxay cawaaqibta ka dhalata hurdo la'aanta? 1. Waa in waxqabadka iyo nolol maalmeedka qofka uu hoos u dhaco. 2. Qofka oo u nuglaada dhammaan xanuunada wadnaha, gaar ahaan dhiig-karka. Sidoo kale qofka oo u nuglaada xanuunka sonkorowga ama macaanka. Waxaa sidoo kale ka dhalan karta in qofku difaaciisii uu hoos u dhaco una nuglaado xanuun kasta. Ugu dambeyn, in qofku u nuglaado xanuunada dhimirka sida depressionka ama anxiety-ga. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan subscribe dheh, gambaleelkana furo. Muuqaalka haddii uu ku cajabiyey, like saar, lana wadaag asxaabtaada. Mahadsanid.